أفضل المخلوق محمد آخر النبيين أحمد ولولاه ما خلق الورى قد توقر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم ضام الماء من سقم madarasatul huda oo ka mid ah madaarista lagu barto culumta shariicada islaamka isla markaana ku taala magaalada Dhuusmareeb ayaa lagu qabtay xaflad lagu maamuusay bishii uu dhashay nabigeena Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee munaasabadan waxaa ka qayb galay culimooyin xeer iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabada ayaa intii ay socotay waxaa halkaas lagu soo bandhigay salawaad lagu amaanayo nabigeena Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم ضام الماء من سقم رحمة الكبرى على العالمين وهو سيد بني آدم صاحب اللواء يوم المحشر الناس صلوا على النبي لنبلغ الأمن بالختام Sheekh Xasan Aadan Kamacle Sheekh Cabdirasaaq Diiriye ayaa ka sheekayay siirada nabigeena Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee xafladan khaymaha badan oo nasiibka u yeelanay Ilaahayna soo waafajiyay inaan ka soo qayb galno waxay ku saabsan tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tacdiimkiisa iyo farxadii aan ku faraxsanayn oo lagu muujinayo waxay ka turjumaysaa dadka soo qaban qaabiyay oo sidaan u dadaalay inay nabiga jecel yihiin waa dad nasiib badan runtii dadka ka soo qayb galayna waa sidoo kale maxaa yeelay meesha nabiga lagu xusay calayhi salaatu wasalaam way ka fadli badan tahay amaakinta kale way ka fadli badan tahay fadliga iyo khayrka nabiga ayay kasbanaysaa oo ay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu ahaa raxmad caalamka loo soo diray caalamka oo dhan buu raxmad u ahaa caalamkaas hadduu yahay bini aadamka hadduu yahay hadduu jinniga yahay hadduu malaa'igta yahay haddii uu yahay gaalada xataa lafteeda dhammaan raxmad buu yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam caalamka oo dhan buu raxmad u yahay inaan ku faraxno marka oo aan tacdiiminno oo aan juhdi ku bixino bisha uu dhashay waa wax aad iyo aad muhiim u ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi ahaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabi aadam intaan ruuxda lagu afuufinin ayuu nabi ahaa sida nabigeena xadiidka lagu warinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam xubbigiisa iyo shacaarkiisa in la weyneeyo waajib weeye maahan sunno waa waajib xubbuhu fa waajibun muxtabun mu'abbada rasuulka la jeclaado waajib weeye marka waxaan isu dardaarmaynaa maxabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan daa'imno shicaarka rasuulka iyo maxabbada rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinkii rasuulku uu la yimid oo mucjisaadkii ilaahay uu siiyey waxyaabihii ugu qaalisanaay ahna sidii rasuulku u mudaabaqay jiray aan annaguna u hirgelinno waxaa ugu fiican qof haddaad jeceshahay dhaqankiisa inaad qaadatidaa ugu fiican jacaylkiisa shicaarkiisa si aad ku muujid waxaa ugu fiican waa inaad dhaqankiisii raacdid marka diinkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimid oo dhibkaad ogeed uu u soo maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo samanta bixintiisii iyo faafintiisii iyo tawxiidkii iyo maaragtay dacwadii ilaahay uu ugu yeerayay dhibkaad ogeed uu ka soo maray annaguna maaragtay aan u kacno
aan noolayno rasuulka sunnadiisii iyo kitaabka qur-aanka oo ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala. ugu dambeyntii sheekh cali axmed maxamuud oo ah maamulaha guud ee madarasada alhuda ayaa asna dhankiisa tilmaamay taariikhda nabigeena Muxamed naxariis nabadgelyo dushiisa ha ahaatee. ilaahay subxaanahu wa tacaala mustafaha asagoo la hadlayo wuxuu yidhi warafacnaa waan kor yeelnay laka adiga nebi allow dikraka xuskaaga sharaftaada ayaan kor u qaadnay buu yidhi. nebiga ayaa loo kor yeelay sharaftiisii iyo dikrigiisa ayaa ilaahay kor u dhigay. aayad qur-aana soo ma ahan warafacnaa laka dikrak xuskaagaa nebi allow kor u dhignay soo ilaahay ma dhihin de ilaahay baa nebiga xusay calayhi salaatu wasalaam xuskiisana meel sare gaarsiiyey. yaan la xusin iyo nebiga hoos ha loo dhigo iyo ha la qiimo tiro iyo waxa ku dhawaaqayaa islaam ma ahan qof islaam oo kumaba dhawaaqi karoba.